Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan akhyaarta dhegeysanaysa channelka dhegeysanaysaana waa channelka Jaamac SC. Akhyaari maanta waxaan rabaa qiso oo runtii aad iyo aad cajiib u ah inaan kaga sheekeeyo. Qisadaas oo ka dhacday maxaa la yiraahdaa dalka Kenya. Qisadan waxaa iga sheekeeyay wiilka ay ku dhacday wiil oo yaqaano oo qisadan oo dhab ula socday ayaa iga sheekeeyay. Waxaa dhacday xeryaha qaxootiga ee Kenya. wiil jooga ayaa waxaa ku dhacday maxaa la yiraahdaa gabar ayuu ka helay. Gabadhii marka dhowr jeer ayuu wuxuu isku dayay maxaa la yiraahdaa inuu barnaamij haasawo ama shukaansi inuu la wadaago ayuu isku dayay. Gabadhii waa ku adkayso. Gabadhii mar walba hadalka salaanta kama qaado ama maxaa la yiraahdaa markuu wax u jira wax u sheegbo maxaa la gabadhii gabar u soo jeeda ma aha. Ninkii maalintii dambe waa ku wareeray qoftaan iyadana way ka cararaysaa asagana aad ayuu u xiiseynaya. Maalinkii dambe wuxuu sameeyay gabadha nin oo yaqaano oo arrimaheeda la socda ayuu u tagay markaasuu yiri qoftaas yaan rabay inaan barnaamij aan kala hadlo oo inay xiriir leedahay barnaamijka noocaas laakiin qofkan jaanis ba ima siinayso yiri qofka maxaa ka qaldan. Kiya markuu wuxuu ku yiri warniyaha qisadaas qoftaas anaa kaaga dhacayo. Qoftaas waa qof boofis aad u jecel yiri. Dumarkana badanaa markii ay ama ragga markay boofis ku dhacaan arrin oo mustaqbal ama maxaa la yiraahdaa jecel iyo afaraas ma u soo jeedaanba. Soomaalidu waxay tiraahdaa qof meel u caddaa meel ka madow. Marka gabadhan waa gabar wuxuu yiri gabadhaas anaa garanayo oo waa heerab boofis u yiri qoftaas Mareykan iyo Canada iyo waxyaabahaas ay ku riyootay yiri. Marka nin aan Mareykan iyo boofis wax noocaas ah macnaha aan kala hadlayna ama aan dibadda ka imaan qoftan salaam ka qaado yiri. Ninkii wuxuu yiri war sheekadaas saas miya qoftan anaa garanayo yiri iska daa. Sheekadaas oo boofis ma aha. Ninkii wuxuu sameeyay wuxuu yiri qoftii telefoon numberkeeda ii raadiyo yiri anaa garanayo waxaan oo kale. Gabadhii oo wacay markuu telefoon kala hadlay wuxuu yiri walaalay waxaan ka soo wacayaa UN tan ka soo wacayaa yiri. Haye maxaa rabtaa waay. Wuxuu yiri UN tan ka soo wacaynaa barnaamijkaaga boofiska iyo waxaas ayaa rabnaa inaan macnaha hadii aan waxba ka wareysano marka barnaamijkaas aan rabnaa macnaha hadii inaan ku fududeyno. Gabadhu way farxadii la dhacday in gabadhan UN taaba boofis macnaha barnaamij uga xareysan yahay oo waxay ka sugaysay. Kiyaan u soo sheegay Soomaa macluumaadkan. Gabadhu waxay tiri waa barnaamij oo UN tay waxaas gabadhu way farxad meel isgeysay weys. War waxay tiri maxaa la yiraahdaa goorma marka maxaa la barnaamijkayga aad gudagaleysaan adu waxba ka walwalno yiri kiiskaaga hadda anaa la ii dhiibay anaana kiiskaaga meel saaray iyada gabadha laakiin isma dhahaysay ninkii aad telefoonka aad ku adkeenaysay iyo waxaas way isma dhahaysay qofkan telefoon ay kala hadlaysaa. Gabadhii maalinta dambe ninkii maalinba soo u balaminayay marka dambe wuxuu tiri gabadha halkee kugu imaaday ay weydiisay markaasuu yiri UN tan joogaa UN tii ugu imaaw. Ninka markuu wuxuu rabaa meesha UN ta markii ay gabadha u socoto inuu meel ka sokayso amal intuu ka soo baxo oo iskaga dhiga macnaha deenin oo UN ta ka shaqeynay. Gabadha marka xilli uu balamiyo yiri saacad hebla igu imaaw meesha. Gabar boofis macnaha iyo barnaamij ku jirto waa taqaanaa saacad uu balamiyo saacad ka sii horeysay meesha tagtay waxay istiri macnaha balanta ka daahanay filinkaas UN ta waxa waaye kuma sugaysa amal ka dhacsan. Naagtii oo uu balamiyo duhurkii balamiyo meesha 4 saac amal ay sii tagtay. Markay meesha tagtay naagtan waxaa la yiri war waxay tiri balan leenay naga leexday tiri yaa waay waxa balanta leedahay war UN ta ay balamiso telefoonkan laga soo waco naga leexday tiri balan noo taala meesha. Ninkii uu yaab wuxuu yiri war maalinta yiraahdo waxaan yaa waa ninka sheegayso nin noocaas la yiraahdo waay. War nin noocaas la yiraahdo UN ta kama shaqeeyo walaalay wax ku sheegnaa nada. Waxay tiri war ninkaas balan la leeyahay iga leexda telefoon numberkan laga soo wacay telefoonkii fiiriyeen numberkii markay ay fiiriyaan nin oo meeshan ka shaqeeyaba ma ahanba. Marka waxay dhaheen ninkan waa scammers ay dhaheen waa ninka ku qaraabto magacaha UN ta iyo filinkaas ninkan waa qabanayna waa xireynaa dhaheen naga daano balamaadi. War sugba iigo sida ula hadlayaan ninka uu soo wacay. Ha UN tan jooga ha walaal ku aawada meesha waa imaadee asiga wuxuu isku soo geeyay wax soo socda meelaha tan soo dhawaay maxaa meesha ma sii tagtay. Ha kuwii security waxay soo mujeedinayaan ninkaas la hadlaya waa maqlisiinay. Kuwii waxay dhaheen war ninkan scammers waay dadku qayaana oo magaca UN ta ku qarabtay ninka maanta filinkiisa soo afjareenay ninka noo balami. Ninkan uu soo socda
laakiin barnaamijka weji kaloo yeeshtay abaheley waxayba iska soo goyso naagtan kiis ila UN-ta kiiska u yaala waxay tahay kiis oo kufsi inay niman ay hadda ka hor ay kufsadeen oo nafteedan u baqaysa ayaaba kiis ugu jira iyada. naagtii waxayba iska goysay ninkii markii la qabtay oo ninkii oo isagoo meelo geeda iyo ku dhudhumanayo meel nimankii intay geedaha intay meel u galeen ay ciirsadeen ninkii soo qabteen ninkii waa la qabtay waa la xiray ninkii waxaa la yiri scammers ato magac UN-ta isticmaashaa barnaamij kiis dheer lagu furo ninkan aan caadi ahayn. sheekada weji kale yeelatay ninkan barnaamij oo wax oo fudud Soomaalidu waxay tiraahdaa waxa dhow soo maleynaysa xarka ugu noqdeen ninka shilinka feekada waa ku qaraxday barnaamij xunu faraha la galay waa la qaraacay waxaa la yiri xabsi ah tahay waa stationka la geeyay waxaa la yiri gaarisa lagu gudbina naagta dhulka isku garaacday waxay tiri nimankii kufsanaaye ayuu ninkan ka mid yahay nafteeda u baqaya xaaladeedu waa xun tahay war meeshaan inta barnaamijkii halii soo boobsiyo ani dhibaataan ku jira war dab socday dab ku qabsatan islaantan ninkii waxa waaye sheekadiisa cirka isku shareertay kuwii waa la xiray ninkii naagtan waxay taagantaa kuwii kufsanaa iyadan waxa waaye imaanka wax kasika waxay bistiribo maxaa la yiraahdaa waaba Janis be UN professor processka soo kugu boobsiisnada ninka waaba asagii waaba dhehbo ninkan afli wuxuu galay sheekada waa ku xumaatay waa la xiray waxaa la yiri ninkan UN-ta loo balmina nin marka meesha joogo oo maxaa la yiraahdaa oo taleefanada iyo waxyaabahaas iyo ku takhasuso meesha deganaa adiga loo yeeray ninkii ay qaraabo ay ahaayeen qaraabadiisu dhanto way diideen inay damiintaan waxay dhahay mid walba wuxuu dhahay war ninkan hadii aan damiinto hadduu hal mar baxsada bis waa ninkan hadhowdi aniga nin oo saas loo haysto intaan damiinto hadhow intuu carar aniga hadhow qoorta leema galay qof walba uu ka carar marka mid meesha jooga marka wuxuu yiri waxaan anaga garanay iska daana damiinanaay mid oo say qaraabadiis oo xariif ah laakiin naagtana fahansan ninkii uu sheekada weydiiyay war maxaa lagu soo qabtay sheekada markuu u sharaxay wuxuu dhahay war ninkan nin shukaan soo jeedo waa sheekada scammers iyo filna loo geliyay naagtana dab kale ku shidatay ninkan maxaa sameeysaa naagtii wuxuu dhahay qof fiican ku sheegaa ninkan adiga ninkan waxa ka wada hadasheen kulli waa duuban yihiin barnaamijkaaga waxa way Safaricom wacaya waxaan leeyahay audio calling wixii oo dhan dhacay meesha maxaa la yiraahdaa noo soo diraan leenahay sheekada adiga kufsiga xilliga aad register ninkan meeshaan ma joogin Soomaaliya u jiray ada cadeemo waxaan keenaa markii intuu kiiskaaga filimkaaga ka qarxi la walaalay maxaa la yiraahdaa naftarkaaga barnaamijkaaga maxaa la ka fikir haddii ninkan isleedahay macnaha dab socda ku qabsay isleedaan waa sheeko kale laakiin hadhow university ka qarxin waxaan waa la baaraya baaritaan la sameeyo investigation la sameeyo islaantu isku naxdeedan wuxuu istirwano waxaan ama filimkan isleedahay macnaha ama ku hesha ama filimkan di baaritaan la sameeyo ama qoorta ku gashaa ninka kiya soo damiintay nimankii meesha joogo xoogaa wax ka siiyay ninkii maalinta la soo daay maalinta ku xigto carar Soomaaliya oo carar ninkii maalintaas wixii ka bilowdo gabar dambe maxaa la telefoon dama ka muuqin sheekadaas waxaan soo gudbiyay maxaa la yiraahdaa nin oo aan aad iyo aad isku naqaano oo sheeko qeysa dhacday oo dhab oo la yaqaan waay marka qiyaarta sheekadaas waa sheeko macnaha aad iyo aad u xiiso badan sheekadaas marka cashirka laga dhigan karo waa maxay ragow waxyaabaha qaarkood ah sahlanaysaan iska ilaaliya waxyaabaha aad isleedihiin macnaha dee waa wax basiid oo naaga lagu soo xirogeliyaa been hadhowna runa lagu dhaqaa waxaas iska daaya ragga ayaan u digayaa iska ilaaliya maxaa la yiraahdaa waxyaabaha qaarkood oo aad isleedihiin macnaha dee dumarku soo xirogelsha dumar oo adinkana maxaa la yiraahdaa waxyaabaha masabidashada oo aad isleedihiin macnaha dee marba inaad victim cards ina marba ciyaartaan iska ilaaliya sheekada waa la kufsaday iyo saana la yeelay iyo waxa aan ka jirno been raad ma leh qofkii been sheega maalna la soo qabanaa waxyaabaha scammers-kana iska ilaaliya aqaarta waan idin salaamayaa haddaad ku cusubta channelkayga maxaa la jaamaciisi fadlan waxaan leenahay channelka like iyo subscribe noo saara muuqaalkana sii gudbiya haddii aad rabtaan qisooyin la mid ah ama qiso adag kugu dhacda ama qof aad garanayso ku dhacdana fadlan inoo soo gudbiya insha Allah waxaan sameyn doonaa qisooyinkaas ayaan soo gudbinaynaa qisooyinka laakiin tan soo gudbinin waxaan rabnaa qiso oo gadmayso oo macquul oo aan been ahayn qisooyin oo dhab ku saabsan ayaan rabnaa waayo sheekooyin ma rabno oo sheeko xariir iyo wax noocaas ah tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته.